السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود على بالك السوق joogto kusoo wada janaalkayga Bashir Axmed Dardari barnaamijka saakiisa clips hortooda ku soo qaato wararka ugu xisaabtan anaga suuqa bixinaa sala ku qotmada suuqa wararka dhanka suuqana waxaa kamid ah Arsenal ayaa ku rajaween in ay heshiis amaah ku soo qaadato garabka dowladda kooxda Barcelona Malcolm waxaana ay doonayaan inta aanu bishii January xirmin inay xidigaasi soo qaataan xilli suuqa clipsiga bishii January uu gabagaba ku dhow yahay warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Mahdi Benati ayaa 10 milyan oo gani ugu biiray kooxda Al Dubai Sports Club ee wadanka Qatar si rasmi ah u soo bandhigeen xidigani iyana waayo cusub halkaasi ka bilaabi doona warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Paris Saint-Germain weeraryahankoodii Jose Rodriguez ayaa ku biiray kooxda La Liga dalka Spain ka dhisan ee Real Betis qaabamaha ayuuna xidigani kooxdaasi ku aadabaan xidigii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Chelsea xidigoodii Abdulrahman Baba ayaa qaab amaah ugu biiray kooxda Rennes inta ka dhaman xilli ciyaareedkan warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Sandro Wagner ayaa ku biiray kooxda Tianjin Teda ee China Super League kooxda Bayern Munich ayuuna xidigani ka yimaaday heshiis ku eg 2020 ayuuna kooxdaasi u saxiixay warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Antonio Martial ayaa heshiis 5 sano ah u saxiixay kooxda Manchester United oo ku eg 2024 warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah kooxda Villa ayaa la soo saxiixatay weeraryahanka Karlan Grant kooxda Charlton ayuuna xidigani ka yimaaday heshiis 3 sano iyo bar ayayna la gaareen xilli aan la sheegin xidigan qiimaha ay ku soo qaateen warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Rangers ayaa la soo saxiixatay Matt Blister kooxda MLS-ka dalka Mareykanka ka dhisan ee Chicago Fire ayayna ka soo qaateen 2 sano iyo bar heshiis ah iyana xidigani ku soo qaateen warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Marwan Fellaini ayaa la sheegay in uu saxiix la gaaray kooxda China Super League ka dhisan ee Shandong Lungneng Station 3 sano oo heshiis ayuuna la gaaray xidigan waana la xaqiijiyay xidigaasna waxay u baahan tahay kooxdaasi uu ku biiro warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Schalke ayaa la soo saxiixatay 18 jirka Manchester City garabka ugu duulayay ee Rabbi Matondo 11.3 milyan oo pound ayayna xidigan ku soo qaateen warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah China Super League kooxda ka dhisan ee Dalian Evengi ayaa ugu yaboohaysa Olivier Giroud mushaar gaaraya 10 milyan oo gani sanadkiiba haddii xidigani uu kooxda ka soo dhaqaaqayo laakiin Chelsea ayaa soo diiday oo doonaysa xidigan in ay qaaradda Yurub ku sii hayaan xilli horyaalka dalka China ciyaartooy badan oo ay ku qulqulayaan maadaama ay ugu xulanayaan lacagaha waalida halkaasi yaala warar kale dhanka suuqa waxaa kamid ah Denis Suarez ayaa si rasmi ugu biiray kooxda Arsenal qaab amaah xilli Barcelona uu heshiis cusub qalinka ugu duugo oo gaaraya 2020 xigeenka barnaamijka tan iyo kulan dambe sidaas